farole waxa jooga ina Cabdirashiid waxa jooga Herow Shakuurkii la dhahayay waxa jooga intii Ilaahay nacay oo dhan ayaa magaalada Kismaayo jooga marka inta Ilaahay nacay iyaga ayaa isku qabiila iyaga ayaa isku dana iyaga ayaa isku ujeeda ah iyaga ayaa isku mabda ah marka inagu yeynaan u kala bixin magacyo kale iyo heerar kale waayo heerna uma shaqeeyaan cid kalena uma shaqeeyaan waxay u shaqeeyaan waxa weeye waa dhaqamadooda foosha oo ku salaysan shisheeye kalkaalka dal nacaybka dad nacaybka iyo canaasiirnimada iyo cadowtinimada ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan yaa dadba waxay dhahayaan farore waa reer hebel ina Cabdirashiid waa reer hebel ina Cabdirashiid macal aasif aniga waa abtigayna Cabdirashiid aniga ma ujeedaa idinla hadlaaya waa abtigay bulshadu maanta hadday rabto inay dhigax ku dilaan qofka ugu horeeya dhagax soo qaadanayaana maasha Allah aynu ka korno reer hebel iyo waayo reer hebel uma shaqeeyaan waxay u shaqeeyaan dhaqankooda foosha xun iyo jeebkooda ayay u shaqeeyaan iyo mabda'ooda foosha xun oo ku salaysan shisheeye kalkaalnimada waxaan ku leeyahay qurunimada dal nacaybka cawaanimada caqli xumada ayay u shaqeeyaan wax kale uma shaqeeyaan صح marka aynu meel uga soo wada jeesano oo aan ogaano raggani cidda ay yihiin iyo ujeedada ay leeyihiin iyo meesha ay u socdaan iyo waxa ay rabaan inta markaynu ogaano ayaynu inaga oo collectively inaga isku wada jira baynu waxaynu noqonaynaa dad baynu noqonaynaa laakiin inta aynu leenahay hebel waa reer hebel waa kan hebel waa sidan waxa weeye inaga ay saxii kala fuquuqayna inaga ay saxii kala jarjarayna inaga ay saxii kala fogeynayna waxa weeyaan aan ogaano masmadoobe iyo maafiyadiisuna meesha ma sii joogayaan waa habeenkii xalay oo tagay waa qorraxda oo ka soo baxday galbeed waxa weeye waa ma soo noqonayo meeshaana waxa weeyaan Kenyana male cid kalena male dalka inaga leh Soomaali baanu nahay dalku waa dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed baa dalkana iskale iyagana u haraaya Kenyaankan maaragtay odayaashan Kenyaanka oo idinku Soomaali baa ku sheegtaan baan u malaynayaa oo waxaan ku leeyahay oranaya taakada la qaadanayo dhulka Kenya nin baa jira waa wada garanaysaan hebel ducaale la yiraahdo magaciisa ma rabo xitaa inaan sheego daayeerka ama eyga baayada lagu yaraa eyga baayada ayo baayadaystay oo maaragtay Kenya wuxuu shaqeeyaa urura ayuu shaqeeyaa iyo maaragtay kuuyada marka ragga noocaas ah waxa weeyaan waxay og yihiin waxa ka damaysa dalka iyo dadka waa Soomaali baa iskale dalkuna waa dalkii Soomaaliyeed haddii ay awood leeyihiin fiiriya idinka waxa la yiri waxana day wax ka sokayana day hadday awood leeyihiin 30 sano inuu burbursanayn maxay u qaadan waayeen dalkeen hadday maaragtay muxuu ahaay xoog leeyihiin maxay badeena u dhici waayeen maxay dalkeena u dhici waayeen maxay Jubbaland u qaadan waayeen waa kuwa hadda Jubbaland oranaya muxuu ahaay Jubbaland waa county ama waxa weeyaan ama waa region ka tirsan Kenya maxay u qaadan waayeen waxa la yiri dheerayga maxaa kulka ka keenay dheerayga maxaa ka keenay kulaylka waxay og yihiin Kenya in ay u soo noqon doonto burburkii ugu xumaa iyo baabakii ugu xumaa inuu ku dhici doono oo uu ku soo socdo oo dhaqaalahooda kalaabsi uu ku dhici doono oo siyaasadooda kalaabsi uu ku dhici doono oo waxaan ku leeyahay jiritaankooda dhan uu ku jiro khalkhal ayay og yihiin marka waxa weeyaan neef la gowracay baa yirigeeda kama waafo guushu waa soo socotaa waana dhowdahay midada kaleeto Soomaaliya waxaan idin sheegayaa adilowde run ahaantii waxaan ka adkaanay ka soo bilaaba jawaari ka soo bilaaba jawaari qof isdhahay oo Soomaali ah meesha waa laga tuurayaa ma jirin jawaari baynu ku bilawnaa yaa ku xigay Sharif Sakiin baa ku xigay yaa ku xigay sheegay yaa ku xigay Axmed Abi oo hakii ku xigay Sharif Sakiin waxa ku xigay ninka la yiraahdo xaaf baa ku xigay waxa maya Sharif Sakiin waxa ku xigay maxay gas baa ku xigay gas waxa ku xigay yaa noo haray waxa noo haray Axmed Madoobe keedanaar baa inoo haray marka ha sugi waayina saadaashu waa guul midada kale nin aad
adkaatay maaragtay maalin cadday habeenta waxa weeyaan waxaad uga dhaardhaarato maaragtay wax jira ma aha habeen inaad u dhaarato ma aha habeen maaragtay inaad lacag juglayso ma aha maalin cadday baad ka adkaatay marka waan ka wada adkaanay iyagoo dhan wuxulaystana ma sii joogaayo mana joogayo waa habeenkii xalay waxaan hubaa sida aan wadkayga u hubo hadhow dad baa idhihi doona maryanayba waxraadogay sidaan wadkayga maasha allah صح ayaan u hubaa geedanaar inuu tagaayo oo weliba sida ugu foosha xun inuu tagaayo laakiin waxaan su'aal weydiinayaa qolooyinkan daba roonaya oo gurbaanka maran u tumaaya oo waxaan ku leeyahay meelaha kala duwan ka imaanaya waynu wada garanaynaaye saaxiibayaal waddanka laydinkama laha anigu mid baan idiin sheegaya waddanka laydinkama laha dad soomaaliyeed baa tihiin walaalihiin baa tihiin waxa weeyaan haddaad nala joogaysaan oo nala deganaanaysaan oo aad noo imaanaysaan welcome haddii kale soo ma aha habeenkii xalay tegay waaye inaad waddanka iyaga maaragta ku amar ku taaglaysaan oo maaragta waxaad rabtaan aad samaysaan dulmigii waa dhammaaday waxa weeyaan shalana maanta ma ahayn dadka soomaaliyeed koomadii ay ku jireen way ka soo baxeen dalkana soomaali baa leh yaan wax laysku khaldin yaan maaragtay laysku qasin wax yaysan maaragtay arrintu idinka hoos bixin dalku waa dal soomaaliyeed etoobiyana male kenyana male tuugna male munaafiqna male waxa weeyaan munaafiqiin isa soo kaashadayna waxa waaye aad waxaan ugu qoslay ragga intay soo ordeen oo kismaayo imaadeen oo dhaheen axmed madoobe baanu taageeraynaa oo maaragtay aanu garab istaagaynaa aad garab istaagtide garabkaaga allaha ka baxee maxaad ku garab istaagaysaa maxaad haysaa waad khasaartay wixii laguu doortay ama wixii lagu igbaday ayaad ku feelgarowday oo fashil baa tahay yaa iska dhaafee dooro jaban ninbaa wuxuu yidhi raggani waxay yidhi u imaadeen wax kale uma imanin 2020 bay waxay rabaan inay isa soo sharaxaan oo yaa waaye cidda wuxuu dhiibanaysaa ummadda soomaaliyeed ma cawaanba cawaan meel laysugu keenay miya cidda wuxuu dhiibanaysaa iyayta cidda wuxuu dhiibanaysaa iska dhaafe wax loo dhiibtee dooro jaban dooro aniga xamar ah dooro waxaa dhahaa digaaga waa garanaya digaag jaban xitaa ma loo dhiibaayo iska dhaafo waddan iyo dal iyo wax lamiday marka dadka soomaaliyeed ha fahmaan intaas munaafiq qabiil ma leh munaafiq reer ma leh waa maafiyo soomaali baynu nahay waddanka inagaa iska leh waalidooda salaamaya dhammaantiin wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu ina adeeray waad mahadsan tahay gabadhaas soomaaliyeed ee maryan saciid sharaf bay leedahay waa marwo soomaaliyeed oo degan waddanka canada gaar ahaan galbeedka marka waan ku salaamayaa maxaad ku soo gabagabayn lahayd ummadda soomaaliyeed dardaarankaaga ugu dambeeya waxaan ugu dardaarmayaa dadka soomaaliyeed walaalayaal waddanka inagaa leh waddanka cid kale ma leh waddanka masmadoobe iyo maafidiisu ma leh waddanka munaafiqiinta usoo yaacaya ma leh waddanka inagaa leh inaga ayay tahay inaynu badbaadsano inaga ayay tahay inaynu maaragtay garbaha isqabsano inaga ayay tahay inaynu midowno inaga ayay tahay inaynu sabaha ka shaqayno inaga ayay tahay maaragtay inaynu wanaagga dalkeenna iyo dadkeenna aan maaragtay ka shaqayno maasha allah codkaaga iyo carruurtaadaba allah kuu barakeeyo gabadha soomaaliyeed waad mahadsan tahay mar kalena waan ku soo qaban haddii aad waqti hesho insha allahu qof kalaan soo qabanayaa meel fiican baad ila gaarsiisay jazaaka allahu khayran baan ku leeyahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu faadmo wadani soo dhawow faadmo wadani soo qabso faadmo wadani soo qabso haddii ilaahay yidhaahdo faadmo wadani soo qabso insha allahu soo qabso adiguna aad nala wadaagtid hoos bay tiradii u dhacday 100 baynu gaadhnay laakiin hadda hoos bay u sii socotaa sheer gareeya oo sheerka taabta waxaa soo gashay gabadhii soomaaliyeed faadmo wadani وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ونلوذا وحي حقد هايسو إن شاء الله كل واد مقاشي خيرنا نقد عيسانية مريم سعيد يو قبلها كلي ويلاش ودنيين الصوماليات أيو خيرنا هذا كسو يدي فرقلين كينيا يو قاون أنجير لو وصل قبلنا ورجيسو دي حتى أي صوماليا قبل وقايبين أيام مركا
maxaad la wadaagaysaa shacbiga Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Kismaayo laga daawanayaa Muqdisho laga daawanayaa Canada iyo Yurub iyo Mareykanka ilaa maaragtay New Zealand ilaa Australia caalamka dhan baa laga daawanayaa maxaad nagu soo kordhinaysaa soo qabso ما شاء الله تبارك الله أنت سلام قالي أو كو سلام يا ودني أبان كو سلام يا واشي مريم وصاحبتي آدي وفق أبان سلام يا قالي هذا ودني والسلام يا داد قالي ومشا كبوحة أبان سلام يا سومالي محمد أنت المرعود الشيغني أنت شيغي وهدنا دقيسنا يو kuwa gadaal inaga dhageysan doonaba aad baan idin salaamaya salaamku Musab waan ku salaamay soo dhawow ma sha Allah kadib waxa weeyaan horta Kayati iyo Imaaraat iyo maxaa ku raahdaa nimankii la dhihi jiray isheeg Israa'iil oo socda Kismaayo ku soo degay diyaaradihii baa diiday inay degaan maxaa ku raahdaa Axmedoobe dagaal buu ilaamiyay maxaa ku raahdaa waa la baqahayaa maxaa ku raahdaa isheeg odayaasha oday dhaqameedyadii baa isdhiibay allaga reer hebel oo tuurta ku horta waxaan leeyahay ninkay dul leydka soo galo ara reer hebel laada horta maada fakar baan leeyahay waligay aflagaada ma dhihin nacalad baana wejiga kaaga taalo Soomaalina ma tihid Soomaalina ma sheegatid and I hate the people who use the qabil waa ko Soomaalina waxba kuma laha ana reer hebel hadduu macna sameynayso doonsare isxun hayeen waxa weeye ana dad aqaro u diray aqaano ana maxaa ku 20 jir duugi karo ana maxaa ku raahday magacyo isu bixiyo weeye sax waxay ku wada faanayaan ordo taas u diraya sax waxaan ku sheegayaa oo kale nimankan inta isku imaadeen Kismaayo xulufada ah ayaga waa hal qabiil kuwaas qabiil la dhahaa ordo laba qabiil oo xun oo dhasiis aba Soomaali ka dilaacday kuwaasan algu qabiil waqana runta markii laga hadlo qofkii uu nacayna ugu naco qofkii ugu jeclaado anigu qabiil waxaan u aqaanaa al-shabaab nimanka la yiraahdo waa hal qabiil nimanka la yiraahdo mucaaradka la yiri oo maxaa ku raahdaa damo dajiibka la yiraahdo oo gadigooda waa every single qabiil arag waa hal bal ninka dhamaayo madaxweynaha Soomaaliya ah hormuud ah waxa ku xiga maxaa ku raahdaa duq weynaha 80 jirka ahaayo oo farolaha waxa ku xiga maxaa ku raahdaa ninka dhamaayo la yiri Jubbaland buu maxaa ku raahdaa amniga uu hayaa wasiirka amniga ahaado awr horabo waxa gada joogay waxa maxaa ku raahdaa Jubbaland joogo dhan uu amxaaro hore uga gaday waxa ku jiro sargaalkii dhamaayo maxaa ku raahdaa faro fartaag ahaayo xaraamga waxa ku jiro maxaa ku raahdaa fiqi oo maxaa ku raahdaa maalinku mar alla markii uu soo diyaariyay qarax oo meel uu ku ogaado maqaanka xamar la soo istaaga oo kaasa 30 qof dhintaan ama 50 ama 100 صح waa la yaqaanaaba صح maqaan xamar buu dhig maqaan xamar anigu waxa mar walbo waxaan dhahaa maqaan xamar markaad maqashaan gurigeena ku jira habay maalin xitaa mashiixa lagu xabba maqaan xamar markuu yiraahdo hala kala yaaco wallahi markuu oo fiirsada ninkan ilaa weliga markuu maqaan xamar hadda ayaan buu gada ka hadla 60 wiil baa xamar la isku dilay waxa weeye anagu duulimaad baan noo gada tagno oo sidig dheeraha tagno meesha xuduudka 60 wiil baa hal marka looga siiyay habay maalinku hadlay maalinku ku xigay xamarna mar alla markuu yiraahdo maqaanka xamar baan raadinaynaa ibriya baaba waxa ugu dambeeyay ninkii dhamaayo heroga ah oo hariyayga ah ugu dambeeyay horta anagu haddaan nahay maxaan ku raahdaa dadkan midnimo doonka ah oo raba maartay maxaan ku raahdaa wada jirka Soomaaliyeed u taagan oo maxaan ku raahdaa dawladda sharafta leh maxay ahayd dad subxaana taala ku idmaayo ku daba faylsan ciidanka naga horta uu dhaqaaqay ciidankan waaga naga maxaan ku raahdaa dawladda waa tabcaan iyo dawladda waa jirsada la dhigi jiray manihin we are very powerful hadda alxamdulillah ilaahay baa mahad u sugnaata Kenyatina saddex wiil oo Soomaaliyeed baa ku filan waa saddex madaxay saartaan qoriyaha saddex waxaan ku rabaa kubanaan markii 10 wiil oo Soomaaliyeed taa loogu soo daayay wallahi qoriyaha madaxa saartaan way carraan waa bishaaraynaya nimankan hadda uu Axmed Madoobe isku hadlaynayo hadda Axmed Madoobe gabarkiis baa amna wari Axmed Madoobe shit hal xabbo oo isku aan uga baqayana ma jirto laakiin nimankan inta isu soo baxaysteen meesha joogo shacabka reer Kismaayo waxay idin sheegayaa ku caweynina biibitooyinka meelisha hal ku cabbi jiray iskugu imaanina guryihiina gala
shaah guriyina ku karsada sokorta heegayta guriyina gabdhaha shaah ay kugu kariyaan hadaba waan kaga digaya xamadoobana wuu ku daayay xamadooba si dadban iyo si caadi waa loo hadla wuu diiday maanta go'aanka ugu dambeeya laga gaar xamadoobe waxa way roobo shaah la cabaya waa sax samada garan aad baan soo dhaweynayaa runtii walba wuxuu u bilaabay maartay inuu dadkii maxaa ku raado qoriyo hadda odayga maskiinka ahaa oo la yiri wuu tala sido waa ugaas ogaadeen la yiri waa been iyo bakti waxa ay caruurtaada maxaa ku raada joog halkaan dhow ee maxaa ku raada keeyo meeshaas oo ka degan baa la yiri wariyaa wiilashaadii gabdhaha la isku saaraya hadaadan isdiibin odaygu isdiiba la nafta orodka yaa mintaay hal xabo cudur ma qabno halkaas mid laga saaray soo dhaqaaq baa lagu yiri halkaan la ka hadal markuu hadlayo fiirso salaada garan haday bilaal oo darag uu dhintan ayaga dilay axmed mado maanta odaga darag haduu dhintay darag haduu intuu anta ka darka uu darag u dhinto ayaga mas'uulka hodan la leeyahay ku maqan yar niman adag oo xoog badan baa ku maqan rag badan buu soo harqiyay wiilasha yar raqo maartay uu saarkay u garay soo xulay uga badan baa saa ugu maqan illa iloobu mooda no wallahi hadda soo xigtay xakrad baa sugaysa because waxaan haynaa list iyo sawiradii iyo dadkii meydadkoodii 13 jir uu life ku duugay baan haynaa waxaan haynaa dadkii meesha u dhashay oo maxaa ra anagu aabaha iyo hooyadana aan la hadli karin loo hadli karno dama telefoonka kugu daminaya wadna kariir buu ku rida dadkii isbedelku uu sheegay waa dadka xaaraanta niman baday soo istaagaan bay dhan Axmed Madoobe soo meesha u qabsaday taajiriin baan noqon webi iyo fadmaan haysan صح inuu ku yimid beegara aniga iyo Maryam Sayid meesha aanu ka soo jeednaa aabaha iyo hooyadana lama hadli karno Soomaalida garan qaxooti baa naga dhiga wallahi qaxooti iyaga noqonaya daris wanaag baa soo noqonayo dadkii meesha walaalaha iyo xaafad baa iskugu yeelin jirnay markaan caruurta ahayn xaafadaha ku wada sheekaysan jirnay wax qabiil yiraahdo ma la aqoon barisamaadkii baa soo noqonayo Axmedooba waa u dhamaatay ninka Axmedooba kismaayo ku joogo wuxuu yiri waagi rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhintay ilaahay caabudayo ilaahay wali waa joogaa ninkii maxamed caabudayo maxamed wuu dhinta hadda ninka caabudayo Axmedooba wuu ku daayay ninka kismaayo u dhashowna kismaayo waa nabad intay nabadda ka noqonaysa geedaha fooda ku hayaan leena caruurta iyo gabdhaha iyo maartay hooyooyinka iyo ilmaha dadka rayadka ana war isdabiciyo oo tartiibtiina duhuradii adeegta inta ka horeysana guriyeena gala ka dambaysa kismaayo gacanta ku jira weena ku jiraysa Axmedooba gacanta laga taabanaya dadkuna ka baxaya cilmooga wuu tala sudaa la yiri cilmooga fugif abu samay cilmooga iyo ninka la yiraahdo Axmedooba waa laba nooc ma adeer mana tala suday ma garata musharaxiinta meesha joogo ama ku soo baxeeno ama kuwa kale ku soo baxeeno kuwa waxa rabaa dawladda markay tiraahdo hebelow maxaan ku raadaa caruurtaada midka ugu dhagan markiiba hooyo ma dhahay ama aabo ma dhahay istaag inta ka soo kuxuu socod ku soo daraa wasaas kale dawladdu u baa la rabaa waxaa la rabaa nin maxaan ku raahdaa maamulka maxamed koonfur galbeed sida different hadda ugu sameeyo tuulo uu geynayo maxaan ku raahdaa iskuulada iyo daawooyinka iyo maxaan ku raahdaa isbedelka xoog gale iyo beeraha la falanayo uu ku sameeyo baa la rabaa nin oo dawladda la jaan qaado kayaati Soomaha abo anaga ku filan anaga gabdhaha aniga iyo maxaa ku raahdaa Maryam Sayid iyo maxaa ku raahdaa bayloodka naga intay diyaarada loo fuushiyo madaxa ka wada tooganayna loodanada yaariga naga iyo gabdhaha naga istul saareen iyo wiilashanada ayagan hadda istul saareen ina adeeray hal su'aal baan rabaa inaan ku Faadmo Wadani hal su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo oo ah xogtan bal ninkan suldaanka ila wadaag waa adeerkay ninkan Abdullaahi Cali Sonkor markii horena Axmed Madoobe qori dhafoorka kaga hayay oo lahaa saxiix inta inay soo galaysa marka odaygii maxaa ku dhacay bal nala wadaag odayga hadda waxaa la yiri adeer meeshaan aad ku jirto isbeddelkaaga maahane maxaan ku raahdaa caruurta haddaadan soo noqonin baa la yiri oo odaya dhaqameedyada halkaa joogaada ka mid noqonin adeer adiga waxa way cimrigaaga hore u soo xunta sax ilaahay abuurto dambe ku harayna male adna waa ku cunaynaa wiilashaada iyo gabdhaha xagga joogana 20 baa dib loo bireeyaa la isku saaraya sax ama caruurtaada ama adiga iskeeno odayaasha dhaqameedyada kale oo dhaximo ma sha Allah ninka caruurtiisa raba in la wada bireeyo way ma nina ma rabo ma sha Allah haye waa ku raacsana laakiin choice-kiisa kumuusa tagay ama caruurtaada geeridooda la yiraahdo adiga soo odaysa dhaxfariisan la amba hadii maanta la yiraahdo wax walba dhaco
hadda ilmahayga anigu kismaayo joogaa haa laakiin ilmihii kismaayo ma joogaan Kenya joogaan ilmaha ka samad baa lagu yiri wallahi qori baan middo uga haynaa qoorta uga haynaa baa yiri gowrac wayna samayn ninkan cabdi ilay weeye cabdi ilay intuu cunay buu kismaayo ku cunay haddana waxa weeye waa wada xaraar iyo sakaraad dadku uu dhib u geystay صح dad buu sumeeya dad baa baralaati oo dheebara loo xiraa asaga dad ay iskugu xigaan ninkan asxaan male ninka kursiga ku fariisiyay buu sumeeya waa shaydaan bayna dhaqa yuhuudad buu leeyahay ninkan islaan ma aha ninkan qabiil ma matalo fartaan baa qabiil matalin farolaa qabiil matalin axmadoodaa qabiil matalin dadku bahal xun oo daallucuur oo meel soo taagana cadawuna waa cadawu Soomaaliya iyo qabiil hala kala saaro qabiil baad eegaysantihiin ku dhinteen waarun waxa weeye qarannimadii calanka buluuga beenta tiirid waxa alla waxa maanta waxaad moodaa in la yiri 1991 ila alxamdulillah maanta anigu maana joogo 1991 saan maanta ka hayba ka laakiin dhibaatadii dhacday iyo rafaadkii dhacay iyo sawirada meesha yaalay iyo markaan hadda intaan noqonay aan tagnay dhibaatada meesha foolxumada ka muuqato waxa weeye wax dib afkaaga xitaa inuu karama firka 1991 ninka u yeertay oo noqoslaya shaha la cabahayo ilaahay baa ilaa anu kaas oo kale xataa isugu quraan oo musharax noqon hooyo Soomaaliyeed oo waajeer oo meel joogo xitaa kaas agtiisa xitaa ma istaageen ana waxaan ba ku horibo halna waa idin sheegaya Ahmed Madoobe ninkii maanta koob shaaha la cabay adigu daahirmi doofaar ma daahirma waa doofaar ninkii shaah kula soo cabay weliga yaa Allah gadaal buu ka tooganayaa trust garayna waa idin sheegaya والله إسرائيلية نوصل إسرائيلية دونك وحدد يوحي فتاك إلا الجورة على دونك وجعل ما أدري إذا صعد الله يكلم أقسم بالله هذا وحن روا فما ودني وحن روا وحير إن كل وذاعان روا أحمد مذوبي هذا دقيسته نك اللي مختار عبد الله السهل وكلية هاي نل يرادو جمال عمر حسين الله أو أهان سردون كمان الجليدة أفر سنة كور wuxuu u diray ninkan saaxiibkii oo wasiirka lagu leeyahay arrimaha gudaha iyo maxaa leeyahay arrimaha bulshada loo bixiyo waa waxa wasiirada lagu leeyahay Axmed Madoobe qosol baa ku dira xafiis ay ku shaqeeyaan xataa ma laha marka waxa la yiri macallin maxamed wuxuu u diray nin wuxuu yiri macallin maxamedow macallin maxamed soo dil fiiri hada waa nin saaxiibka oo kula shaqeynaya ninka aad leedahay hebel soo dil ماي وفشل مدوناه markuu tagay wiilkii baa marka u tagay ninkii loo diray la yiri soo dil ayuu yiri macallin maxamedow Axmed Madoobe ee ka soo diray inaan ku dilo laakiin waan ku fakirayaa fako uu fakaray waxa la Axmed Madoobe u tagay Axmed Madoobe hebel maxaad igu soo dirtay ina colhaye uu ninka u diray marka ina colhaye hadda mana dhimanin mana noolan dhoobleey baa lagu daweynaa ilaahay baan ku dhaariyay Axmed Madoobe dadkii ugu xigay weeye dadka uu sumaynayo oo uu leynayo waa ninkan ku leeyahay waa baralaati midka baralaatiga aniga seediga weeye ingiriiska kaliya laga dhaqaa waa mid kale kaaga sheekeynay inuu colahaye oo dhoobleey lagu hayo yaa looga dhaqan ma aha ninka waxa weeye dhoobleey ninka jooga Soomaha ii sheeg meeshan nin waxa waaye jooga kismaayo ereyadeedu joogaayo waaba 50 noloshiisa dhanba 50 weeye macnaha waxa laga waa ina colahayo weeye dadka lagu sheegayo aniga iyo Axmed Madoobe iyo ayaga waan u simanahay qabiilka hadii la yiraahdo marka Axmed Madoobe waxaan ku diidanahay ummadda Soomaaliyeed waa inay ogaataa horta waxaan ku diidanahay jawaasiisnimadka tuuganimadka iyo maaragtay ummadda Soomaaliyeed ee qarannimadku diidan yahay qabiil kuma diidanin horta hal baan kuu sheegi wiil baa waxaa la yiri aabihiis intuu yimid yuu xagga gala oo markaasuu wareegtaa waxaa la yiri adeerkiisa la dilay wara wiilka yaa dilay ma naqaano haddana waxaa dhintay maxaa ku raxdaa oday Soomaaliyeed oo waliba sargaal ah uu ahaa waxaa laga dilay walaalkii markuu dhintay wuxuu yiri war wiilka walaalkay yaa dilay ma naqaano wiilashiisa baa yiri ma naqaano haddana waxaa la dilay wiilkiisa weynaa war walaalkaa yaa dilay ma naqaano markii dambe saddex nin uu soo duway kadib wuxuu arkaa
wiilkiisii weynaa oo aabihii indhaha ku gubahayo wuu yaabay wuu argagaxay ma fiirso wuxuu yiri ninkii marka odayga shaki baa galay walaalka ayaa dilay suu yiri su'aalaha waad igu badinaysaa adigu ninkii caliya taxaal wiilkii wuu kacay habeenkii waa la seexday subaxdii wuu kacay musqushuu galay telefoonkiisi baa ilaahay qadarti odaygiyo meesha fadhiyo oo barkinta hoostiisana ugu jira telefoonkii yaa telefoonka wiilka soo dhaca odaygii baa qabtay odaygina shaki baa galay oo reedi oo ninkan aabihii maba ka jeesanayaba labada indhood isagoo gubahayo yuu fiirinayaa aabihiis haddaba walaalkiina wuu soo duugay wiilkiisa curadka wuu soo duugay subxaan allah wariyaa odayga xukaa mujrimka ahaa soo disha wax yar isugu yiri markuu yiri saa yirina bustaalad baa meesha hoosta ku jirta bustaaladii buu soo qaatay mar alla markuu musqushi kasoo baxayna asagii buu ku tiriyey subxaan allah wiilkiisii intuu asaga niman lahaa asagii buu dilay because hadduu asaga intuu dilay uu yidhaahdo maxaad ku samaysaa dhihi lahaa inta kaloo joogtuu layn lahaa soma marka axmed madowaan kaaga warrame inaad in yar dhegeyso maya wiilka ukaadi al-shabaab baan kuu soo wadaaye waxaan kuugu soo waday axmed madoobe sheekada wiilka al-shabaab buu ahaa subxaan allah maxaanuu dilay walaalkii ka yar buu dilay aabihii buu ahaa hadda inuu markuu soo qabaystay uu labistay intuu kaga taqlusino albaabka ka baxo axmed madoobe marka dadka wuu sumeeyey dadkii buu dhilay dadkii buu laayey kii uu sumeeyey baa hadlay kii kalaa yaallo maxaa ku rahday jooga yurub oo la dhaqayaa kii kalaa maxaa ku rahday masbalaho meel yaallo oo qoryaan ka dhigay kuwo kalaa qabri ugu jiro oo tiro badan kuwa hadda la joogana wuu wada sumeeyey qaarkood oo nafta isku gabaabinaya waxay leeyihiin inta kadaan lagaa toogan lahaa iska joog ma garanta aad xalaala mala nin al-shabaab mar hadduu galay adigu haddaad xisaa dhashtay isku halayn male weligiina ma soo muslimayo xitaa mujtamaca lagu dhex sii daynayo buu axmed madoobe khatar u yahay dowladda waxaa loogaga digahayaa inayna dadweynaha ku sii dayn ninkan meel uu uga soo noqday uu yidhahdo al-shabaab waa ka baxa meesha loogu magacaabay oo jagada lagu siiyey waa logya waxa weye meel walbay taallaa youtube ku jira laakiin meeluu yiri waa oga noqda ma ay jirto 14 Oktoobarna wuu cadaystay ninka al-shabaab inuu yahay maxaa ku rahaa maalmo kale oo dhan uu lahaa tobanaan gaari baa xamar ku jirta oo xamar waa foolnaysa qarxayo isagu soo diyaariyey uu ku faaray ninkan waa al-shabaab mujtamaca soomaaliyeedna waa uga digayaa dowladda dhexana waxaan leeyahay haddaad ku sii daysaan wallahi alcadiim kenya ka qarxaysa ninkan cad xalaala kuma yaallo dadka islaamku hadda uu Ethiopia kenya uu kasoo kaxeeyeyna ha laga qabtay iska ilaaliya axmed madoobe yuu idin dilin yuu idin laynin ehel ma aha abtir inku ma aha been yuu idinku sheegin soomaali weeyaan laakiin al-shabaab cad xalaala male waana ka baxaad baa kuu salaamaya walaalay waad mahadsan tahay maxaad ummadda soomaaliyeed hal daqiiqo oo maaragtay dardaaran maxaad ummadda soomaaliyeed u dardaarmi lahayd ugu dambayntii gabadhaas way ka baxday marka waxa weeyaan waan sii wadanaynaa insha allahu waxaan rabnaa inaan dadka soomaaliyeed la wadaagno sugi hadda qofkan muxuu soo qoray axmed madoobe farmaajo aamino sheekh waan adiga maaragtay waan kaa baloognay waan ku diidnay adiga iyo hawsha aad wadato faadmo wadani okay waad ka baxday marka liibaan xaaji aadan ninkaasaan soo qabanaya insha allahu si uu noola wadaago wixii ugu dambeeyey oo uu hayo insha allahu soo qabso liibaan xaaji aadan ummadda soomaaliyeed la wadaag soo dhawaada dhammaantiin liibaan xaaji aadan soo dhawow liibaan soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alxamdulilah soo dhawow annagu haddee waxa weeyaan wadaniyiintii soomaaliyeed baan nahay waxaan nahay musharaxiintii isbedel doonka marka waxaan ka soo horjeednaa faragelinta quwadaha shisheeye ee Kenya iyo Ethiopia marka maxaad nala wadaagaysaa axmed madoobena maaragtay waan diidanahay ummadda soomaaliyeedna way diidan tahay marka maxaad nala wadaagaysaa adiga iyo ummadda soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu salaamaynaa oo meesha ku jirta waxaan leenahay salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته runtii hadalka intii wax ku ool ahayd ama mataqaanaa intii waxa weeye muhiim ahayd adiga iyo asxaabtii mataqaanaa iga horreysay baa tiri laakiin waxaan mataqaanaa aan ku darayaa aan oranayaa sida gabadha walaashayba macnaha ay sheegtay nimankan al-shabaabka la yidhaahdo isma bedelaan صح dadkan waa jawaajiis weeye al-shabaabka lagu sheegaya wax diinna wada ma ahan wax macnaha dhaqan ka turjumaya ma ahan wax mabda le ma ahan kursi ma doonayaan laakiin waa jawaajiis u shaqaysa mataqaanaa waxa weeye ajnabi u shaqaysa wax alaale iyo wixii mataqaanaa iyaga loo soo dhiibo oo fuliya la yidhaahdo unbay fulinayaan صح waa sidaas mataqaanaa wax way gabadha halkasay nooga hadlaysay wiilka walaalkii dilay adeerkii dilay aabihiina rabay mataqaanaa in joogto axmed madoobe waa al-shabaab صح كسع qof mataqaanaa waxa weeye al-shabaab ah markii horeba soomaali rabitaankeeda iyo mabda soomaali ay leedahay iyo عبد الحكيم شريف احمد سودو ka tirsanaa ayagiiba وان كاغادي سودو عبد الحكيم سودو عبد الحكيم marka waxa weeye muhiimku waxa weeye qof al-shabaab ah Soomaaliya maanta uma baahna al-shabaab inay mataqaanaa ay xoogaysato oo al-shabaab mataqaanaa wadanka ayaga laga sifaynayaaye dadka wadanka laga sifaynaya inay mataqaanaa wadanka dib loogu soo dhaweeyo waxa weeye runtii wadankeena uma baahna waxa kale oo mataqaanaa jirta oo meesha jooga waxa Axmed Madoobe ku xeeran oo meesha isku soo aruursaday waa dadkii dhibaatada ka geysanayay 25 sano ee mataqaanaa waxa weeye TPLF ay meesha haysatay dadkii mataqaanaa waxa weeye Soomaalida dhibaateyn jiray oo Soomaalida lagu gumaadi jiray oo Soomaalida mataqaanaa waxa weeye hagardaameyn jiray oo gabdhaheena mataqaanaa sadaqiyada booliska ku dhejinayay oo waxa weeye dhibaatooyinkii laba ilaaweelka ahaa waxa weeye inta meedkeena dilaa Soomaalida gaariga dabada ugu xirhayay gabdhaha kufsanaya 5 iyo 10 ku kufsanayay raggii waxaa sameynayay mar ها كسع احمد عبد القادر ما كايسد ما هي سو وعيسى الله يبارك ku jiraa midaysnaayeen sida dalka Soomaaliya loo baabicin lahaa dalka Soomaaliya loo hagardaameyn lahaa waxay lahaayeen connection mataqaanaa isku xiran leeyahay maxaa yeelay nimankan al-shabaabka waxa weeye waa mukhaabaraad ay isticmaalayaan mataqaanaa waxa wadamo ajnabi oo meesha u fadhiya marka mukhaabaraadka Ethiopia iyo mukhaabaraadkaas waxay siin jireen mataqaanaa information waxay siin jireen mataqaanaa waxyaabo fasiiraad ah technical waxyaabo ay mataqaanaa isu gudbin jireen xitaa si cad waxay ugu gudbin jireen hubka iyo mataqaanaa rasaasta iyo qaraxyada iyo waxa weeye Ethiopia mataqaanaa ciidamada Ethiopia hore qayb ay ka ahaayeen waxa weeye ugu gudbin jireen صح marka waxa weeye hadda waxa weeye waxa ragga ku xeeran Axmed Madoobe oo يسرب له وعليكم السلام سودو ولا شيء صح كسع aadi waxaan u salaamayaa Maryan Saciid aad baan mataqaanaa u salaamayaa walaashay qaaliya dhamaantiina waan salaamayaa marka waxa weeye waxa loo baahan yahay kuwii mataqaanaa waxa weeye jigjiga iyo qabridaare iyo dadkeena ku dhibaateyn jiray oo meesha ku soo kaxay oo meesha ku dhuwanaya ma aha inaan qabiil sheegayno ma aha inaan qoro sheegayno qabiil iyo qoro shaqa kuma leh laakiin qofka dadka Soomaaliyeed diba jiray hooyada kufsan jiray xoogaaga ariga ah iyo mataqaanaa geela ay baadiyaha ku raacayaan inta u taga ka soo xareyn jiray oo baabiin jiray dadka nolosha u diidanaa intay dhalinyaradeenii iyo wiilasheenii gumaysiga la dirirayay oo 30 sano gumaysiga mataqaanaa la dirirayay intay meel walba ugu tagaan madaxa intay ka togtaan gaariga dabada ugu xirayay kuwaasi laba masaamaxayo masaabaxaadna male meel ay Soomaali ku leeyihiin ma lahan kuwaas meel Soomaaliya kuma banaana Soomaalina ma ahan TPLF waxa weeye ay u shaqeynayaan waa tagtaan ayaka iyo wixii sinji kula TPLF waa in la tirtiro qofka hadduu hooyada yahay hadduu aabaha yahay hadduu al-shabaab yahay ama hadduu yahay TPLF iyo ninkii gabree u shaqeyn jiray gabree wixii dalkeena ku xasuuqay oo dadkeena mataqaanaa uu ku xasuuqi jiray wadankeena boos kuma banaana boosna kuma lahan anigu waxaan ku talinayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaynu qabanqaabino mudaharaadyo waaweyn inaynu u istaagno mudaharaadyo waaweyn waa inaynu ku banaanbaxnaa United Nationska waa inaynu ku banaanbaxnaa mataqaanaa caasimadaha adduunka meelaha عبد الحكيم شريف احمد ورنتا احمد مدوبه وداون waxa weeyaan wax sharaf ana malaha una jabaya ku soo liibaan waxaan oran lahaa waa inaynu meelaha mataqaanaa Imaaraadka iyo Kenya
sida mataqaana London, Washington, United Nationska mataqaana meesha laga xukumo meelaha mataqaana ay ku leeyihiin safaaradaha oo muhiimka u ah waa inaynu mataqaana banaanbaxyo abaabulan oo waaweyn Soomaalida aanu u istaagnaa si ciidamadan Kenya meesha looga saaro si faragelinta mataqaana waxa weeye joogtada ah oo dhaqaalaha mataqaana ay ku bixinayso imaaraadku waxa weeye meesha looga saaro si cadaadis siyaasadeed mataqaana ay u wajahaan waxaan ku talinayaa dadkeena Soomaaliyeed inaynu aynu qabanqaabino oo aynu banaanbaxyo waaweyn oo waliba dawladdu mataqaana ay qayb ka qaadato oo dawladdu mataqaana ay u xilsaarto dad waxa weeye arrimahaas mataqaana waxa weeye qabanqaabiya laana maxaa yeelay dagaalku hal meel in anaga xabad kadibna ma rabno waxaan rabnaa inaan meelo badan mataqaana aan dagaalka ka galno si aanan marnaba aanan mataqaana u guuldaraysan si aan sida ugu dhaqsiyaha badan ugu guulaysano waa inaan dagaalka ku qaadnaa bara cayiman oo haddana mataqaana waxa weeye aan tiro lahayn marka waxa weeye sidaas anigu aad iyo aad bay mataqaana ila qurux badan tahay haddii waxa weeye mudaharaadyo waaweyn la abaabulo haddii mudaharaad dad Soomaaliyeed oo mataqaana activistayaal oo ila soo wadaagana way jiraan oo runtii mataqaana ayaguna arrintaas aad iyo aad mataqaana waxa weeye u qabanqaabinaya adigu naftirkaagu qayb ka noqo inteena meesha ku jirta qayb aan ka noqono waxaan aad iyo aad u codsanaya inaynu mudaharaadyo waaweyn oo meelaha muhiimka ah mataqaana aynu mudaharaadyo mataqaana aynu ka samayno aad iyo aad mataqaana u gilgila صح كسعو marka waxa weeye Soomaalidu waxaan u baahanahay mataqaana inta haddaynu